jaalisiyaad.com. khudbadii ugu dambeysay ee uu jenaraal maxamed siyaad barre u jeedsho inta aysan dagaaladu ku fidin magaalada muqdisho isagoo u sii mariyay raadiyo muqdisho xilligaasi ayaa waxa uu madaxweyne jaalisiyaad shacabka reer muqdisho kula dardaarmay in ay san ka qayb qaadan balaqada xooga badan ee ka socota qaybo ka mid ah magaalada muqdisho. haddaba khudbadan oo ahayd tii ugu dambeysay ee uu shacabka reer muqdisho kula hadlayay tahay hadal badan oo waxma tare waxaan ku soo celinayaa khudbadii ayaan wadaan aqriyay oo aan uga jeedo in aynu garanno danteenu waxay tahay inaan garanno waxaynu nahay inaan isku eegno muraayadda oo aragno horta kuwa wejigeennu waa kuma maxaanse doonaynaa danteennu waa maha danta ilmaheennu waa maha danta dadkeennu waa maha danta sharafkeenna adduunku waa maha waxaan hadalkaa u leeyahay dhowr arrimood dartood xabadda dhacaysa ninna danu maaha wiil bay dishay wiil ma koriso nin laban oo ama ajnabi jooga ama dalkaba jooga inuu dadka masaakiinta ku laaya xabad maaha isugu dhiibo waxa ka sii xun kuwa sida foosha xun waxu beelqaysanaya waxaan la yaabsanahay ninka inta xafiiska dowlad galay warqadihii tuuraaya dhan dariiqa ku daadiyay xaggee buu socda muxuu ka helaya yuusa siinaya warqadahaas yani macnaheedu waxa weeye wuxuu awood u waayey inuu muxuu ahaa inta warqa qaado uu ajnabi u geeyo macnaha waxa weye suuqa ka gartoon buu uga jeeda waxaa ka sii xun dadka masaakiinta ah oo inta xabadii lagu weerariyey iyo boobki iyo wixii sii qaxaya oo gaajadoo la qaxaya oo jidka daadsan mee dhaba loo furay oo xabar laga baxa waxaa daadsan dad masaakiin oo sii guuraya waxa aan leenahay war dadka guryahooda u daaya haeriine ka daaya xabadda iyo qaylada iyo boobka iyo qununka waxa ka foosha ka daaya dad islaam haatiin soomaali baatiin sharaf iyo karaabaad lahaan jirtay wayna wada xoorine almiina wax xoogaa dad iska xortay kulliha xoorine xataa inaad gaartaan heer aad islaamnimada ka baxdaan waa xaaraan waxaa loo baahan yahay inaad caqli yeelataan oo aad garataan ilaahay caqliga wuxuu inoo siiyey iyo maskaxda inaynu ku fakerno wuxuu ilaahay inoo siiyey qalbiga wuxuu inoo siiyey inaan ku naxariisanno wixii naxariis mudan inaan naxariis siino waxaan leenahay dadkaas masaakiinta oo iyagu aan carari karin oo carruurta oo odayaalka oo habraha oo haweenka diinta aad idinaysaan ka daaya iyagana waxaa loo baahanya inay inta iimaanka qabaan ilaahay subxaana wa tacaala qofkii dhimanaya meeluu kaga baxsanaya ma jiro inay guryahooda joogaan ayaan ka cararin intaasi ku eg khudbadii ugu dambeysay ee jaalisiyaad uu jeeshay shacabka reer muqdisho intii ay dagaalada ku fidin guud ahaan magaalada muqdisho.